ballaaran isku yimaadeen haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer kana soo qayb galay mas'uuliyiinta sare ee garabka haweenka xisbiga kulmiye madaxda gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga kulmiye ayaa gudoomiyaha haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer loogu doortay Nasra Qalayax halka ku xigeenna loogu doortay Caasha Ibrahim Warsame kulankan oo lagu qabto Hotel City Palace ayaa u gooreen wax halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Master Sahal kaasoo sheegay inuu soo dhaweynayo hogaanka cusub ee garabka haweenka gobolka loo doortay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbul xaakimka kulmiye Canab Cumar Ileeye gudoomiyaha ururka haweenka Now ee gobolka Togdheer Deeqa Weydaar oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii doorashadiina si wacan baa u dhacday marka taasi horta waxa weeyaan halkan wixii Togdheer joogay hablihii Togdheer joogay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenkii iyo meeshii tartankii ku guuleystay waana ku hambalyeynayna run ahaantii haweenka gobolka Togdheer markay isu tageen ee falaqeeyeen ee aanu kokor iyo hoos bay isugu eegnay waxaanu ku tashanay inaanu garabka haweenka kalsooni buuxda aanu ku siino Nasra dadkii isla xilkulmiya uu ishayaa saas ku kala tayo kuma kala tagin gacmahaanu ishaysanaa marka ku jinkarimayo gudoomiyaha cusub ee loo doortay garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Nasra Qalayax oo iyaduna halkaas ka hadashay ayaa u hambalyeysay dhamaanba xubnihii halkaas ku doortay waxaan ilaahay ka baryayaa xilku ma kala yaryara mana kala waaweyna in ilaahay ugu asturo xilka ay igmateen habeenka caawa waxaan idinku shaqayn doonaa si hagarliya oo qalbi furan oo niyadsan kulankan oo hamis ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa kaloo ka hadlay barasaab xigeenka gobolka Togdheer Master Ubaxle gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka ee xisbiga kulmiye Dalays Faarax Shire maayir ku xigeenkii hore ee degmada Burco Axmed Cabdi Fale iyo mas'uuliin kale kuwaas oo dhamaantood u hambalyeeyay hogaanka cusub ee loo doortay garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Axmed Digaale Home Cable TV Burco.